والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. صدق الله العظيم. الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى أيام مهدل waxaan maaragtay taaganahay mu'assasada weyn oo la yiraahdo daarul qur'aan al-kariim wal culuum al-islaamiyya wal maadiya oo ku taala wilaayadka magaalada Muqdisho gaar ahaan ceelasha biyaha agagaarkeeda. dadka Soomaaliyeed oo muslimiinta ah oo dalka dibad ku nool ayaa waxaan doonaynaa inaanu la wadaagno mu'assasadatan waxa ay tahay. mu'assasadatan waxaa la aasaasay 2014 ayaa la aasaasay oo la bilaabay shaqadeeda. waxayna howl gashay oo shaqo bilowday bishaan haatan aynu ku jirno bishii ka horeysay oo waxa weeye sanadkii tegay bishii 12aad ayaa hawsheedu bilaabatay waxbarashadeeda. mu'assasadan mu'assasa weyn weeye, waxay kulminaysaa dhowr culuuma ayay kulminaysaa. waxaa lagu baranayaa qur-aanka kariimka ah oo ardayda la xifdisiinayo qadar oo gaaraya 2 sano iyo waxaan ka badnaynin ayaan doonaynaa inuu ilmuhu ay noqdaan xufaad ay qur-aanka ku noqdaan. hadda galaaskan aynu joogno wuxuu ka mid yahay galaasyada boardingka ah oo ardadu yaryarka ahi ay ku baranayso qur-aanka. way xifdinayaan ilaahay hadduu yidhaahdo. waxay kaloo baranayaan culumta islaamka ayay baranayaan, tarbiyada ayay baranayaan, tarbiyatul islaamiyay baranayaan. waxay baranayaan maadooyinka nidaamiga ah oo dugsida maaragtay hoose dhexe iyo sare. waxay u gudbi doonaan insha allahu tacaala oo mu'assasadanu ay kulmisaa oo ka kooban jaamacad oo takhasusaad fara badan iska leh ayay u gudbi doonaan carruurtan garbaheena taagan hadda aad arkaysaan. insha allahu tacaala hadda galaaskan iyo galaasyo kale inta ku jirta iyo mustaqbalka soo socda waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inay maaragtay Soomaali ay maaragtay wax badan ay ku nacfi doonaan oo wax wanaagsan awlaadoodu ay bara doonaan adduunyo aakhiraba inay faa'iidi doonaan. dalka dibadiisa iyo gudihiisa ayay u furan tahay. waxaa jooga dad gobolada ka yimiday, dad maaragtay banaadir degan, dad koonfurta degan oo dhan. mu'assasadu marka waxa weeye saasay mu'assasa weyn u balaaran ay tahay. waxay lahaa doontaa qaybta culumta islaamka lagu barto oo maaragtay xalqada aanu maaragtay markeena horeba qaarnu ka soo baxnay oo kitaabada cilmiga loogu akhriyo dadka waaweyn ayay yeelan doontaa. qayb maaragtay dumarka ah gaar ahaan gabdhaha ayay yeelan doontaa. welina waa hawshaas waa ay socotaa. marka waxaa kaliya oo aanu maaragtay halkaan soo istaagnay inay maaragtay dadka Soomaaliyeed ay nala wadaagaan oo ay nala arkaan oo qofkii doonaya inuu maaragtay meeshan xaaje uu ka yeesho awlaadiisa uu keeno si uu maaragtay uga faa'iideysto darajada tan iyo maqaamkan mu'assasada ay leedahay. waxaa u rajaynaynaa dadka Soomaaliyeed inay insha allahu tacaala ka faa'iideysan doonaan awlaadda maaragtay in maaragtay la baro culumta nooc kasta ay tahay. xuquuq aynu leeyihiin weeye. meeshaan waxay leedahay adeeg fara badan ayay iska leedahay. carruurta waxaa weeye subaxdii 2 jeer ayay quraacdaan, waa ay qadeeyaan, waa ay casheeyaan. jiif ayay leedahay, meeshaan jiifaf ayay leedahay. nadaafadooda ayaa laga shaqeeyaa, caafimaadkooda laga shaqeeyaa. wax kasta oo bani aadamku uu tari karo ayaa maaragtay meeshaan aynu ku tarnaa. meeshaan ilaahay anagoo alla tala saaranayna intaas ayaanu ku fikirnay inaan maaragtay muddo fara badan anagoo ku soo jirnay. hadda oo la soo gaaray waqtiga nafcigeedina dadka Soomaaliyeed oo walaalaheena muslimiinta ayaan u sheegaynaa. meeshaan meel shirkad ah oo dad dhan ka dhaxaysa ma ahan.
الحمد لله إلهي أنه مقرب سيء هدنا إن شاء الله تعالى ضدك ولا لهنا مسلمين الصوماليين إن ضدك وحبرتان أيام ديارونها وكد ذلك كنا نسوي دوينه وحاوي ماشان وحاوي ميل جودهان مقع قري إسكالادة وحالي إلى حديقة الحرمين أيال إلى ماشان ميل حديقته وين ويه ومارتها دير الكاد ولا إجي هاي سديد بقول أو متر ولا إجي هاي بل عيدنا ولا إجي بقول متر هي لبا وضو أو كل احتال أي تاي waxay leedahay qayb kale oo maartay xagga siyaaxada ah ama waxa dalxiiska loo yaqaano caruurta ay ku madadaashaan iyo dadka xataa loo yimaada oo hadda maartay kaamirada aan ku haynin faa'iido fara badan ayaa mustaqbalka loo rajaynayaa waxaan leenahay maartay caruurtan maartay ilaahay idinkiisa waalidadoodii way keeneen meel walba laga keenay haata waxa weeye maartay isqoridii way socotaa weli ma aysan buuxsamin هذا واحد ديار لويها إلا قبته دور بقول لقبته إلى 300-400 وهي أنت أسكسوه هرنا وحوي أيجنا ولوسي يدونا هذا وحنا هيسنا دول بلارن أيانو هيسنا ووحك صار واسع إكره بركة وحنا مارتي أنا قبل برنامج كان أما أنا مارتي ضدك وتصينا براه بالشدة إيه كفى إذا سال أي وجادان وحماشان كجرة وأنا رجيت دونا إن شاء الله تعالى ما دام أننا وحنا إلهي در الله قبلنا هوشان إلهي درادي سيدنا قتاي ما دام كتابات القرآن علم قال أخرج جري قرآن كدتك لبري جري إن هذا نقاب مارتي يا عسري سن دتك دين تلوبر وحيل هذا معلمين بدنين لهذا هيو آدي مارتي أقون أولى وجامعيين حتى يجوا قرآن كدتك براي جامعيين شهادوي فربضان هيستان إن شاء الله تعالى دتك الصومالي هم رجيهنا inay maartay guul ay u tahay iyadoo cid kasta oo Soomaaliya lagu soo dhaweeyahay dalka ku noolaato dibadda ku noolaato cid walba ay u furan tahay cid ka reeban oo Soomaalihu meeshan ma jirto waa wax mujtamacan u dhaxeeya wixii maartay faahfaahin ah oo shuruudo ah oo kale oo waxbarashada iyo waalidka iyo wax walba ku tacaluqana xafiis weynaa meeshan ku yaalo maamul iska halkaas la imaanaya kaas baa laga faa'iideysan doonaa إن شاء الله تعالى أنت سنكسو كوبينا عدوى البوي فهم يساوي إلا يلاهدو أنت سنكسو كوبينا هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.